ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay waryaada reer kalamaanow su'aalaan dhib badnayn shirkii dhuusan mareeboo la dhowraayay warkiisa xaggee buu ku dhammaaday warnimiyaw may dheegi jiray soo hanti wareerta abadlangnage shirkisan sheegasan ama ablaylannagihe war shirka awal buuxu dhuusamareeb 2 haddana waxaa loo ballamay dhuusamareeb 3 maandheeyow shirkii dhuusamareeb ma laysu soo dhowaadaa tiraahdeen aryaadaha waxaa hore loo yidhi biyo la waayo weesaa lagu doonaa wixii dhib la yahaantay dharla'na waa leesu dhaafdhaafaahaa la yidhi war shirka dhuusamareeb wuxuu shirarka hore Soomaalidu qabsan jirtay uga duwanaa shisheeye u kala dab qaaday kuma jirin war dad waalna tiini madaxda markay isu imaadeen ay wada tashteen waxay isla qireen in loo kala wargeyn jiray warnimaya war ma haysaane shirkii dhuusamareeb laba ee madaxda u socday wuu soo dhammaaday waxaana laga soo saaray qodobo ay ugu waaweyn yihiin in doorashada dib u dhac ku imaano waqtigeeda lagu qabto iyo in loo ballamay shirka dhuusamareeb 3 oo maalmo kadib dhacaaya arya waa la ballamayaadna tiri Soomaalina waa aqaani ama hadhow ballamo waray ahayd isla soo dhageejiyaan warnimiya wareer kalamaano maysiin warsaday mar walba war kuun dhuusamareeb isan hagaadan maylatin waxa loo ballamay doorashada inuu waqtigeeda ku dhaco lan walba hadaloona saasad leeyaha doorashada inuu waqtiga ka dhiid lan ka diidan kayow warkii hanaga dhaxgalin inaan dhageysta markii qodobada shirka laga soo saaray madaxdii waa wada khudbeeyeen waxaa saaniga igu yaabadnaa madaxweyne waara oo yiri isbitaalkii Lansareete dadka waalan la geey jiray dadka waalan waxa la dhihi jiray fuusta hoos ka duleesha biyo ka buuxi bahashan waa duleesha ki yiraana waa laga reebi jiray inuu fiyow yahay la ogaan jiray marka yaanan ku daalin inaan fuusta duleesha biyo ku shubno warkii iska wadno warana waxa ila yaabadnaa madaxweyne lafta gareen oo yiri 15 bari aan joogno dhuusamareeb wax kasta waa naloo keenay intaan hal shay ka ahayn wah aanay meelaad ku weydiyaasama fuudu soorlaka ama goradeelankaas fuuduna dhuusamareeb ma ka bahaw war anigana waxay u yaabadnaa khudbada madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu yiri dadka markaa hadlaay waxay rabaan inay wax badan sheego ay soo wada fiirinayaan laakiin gacmiga yar jira hoosa loo dhaqaa aniga iyo madaxweynahayguna waa heshiinay Axmed Madoobe waa runtiiso ilka madaxeed hoosay ka xariiraana la yiri war Axmed Madoobe runtiisa waayeel waa ki bari yiif yeeka dareemay waleeri war Axmed Madoobe wuxuu kaloo yiri xoog iskuma muquuni karnaa aan xal gaarno reer dhuusamareebna wuxuu ku yiri war lacag waa haysatiin oo waa idin naqaane hotel la dhista warka Soomaalidu sooma koobmee aad naga kireysataan war ra'iisul wasaare qeyr wuxuu shirka ka yiri wada shaqaan iyo midnimo faa'iidadeeda galmudug ayaa tusaale noogu filan aryaadaha ra'iisul wasaaruhu ama uu ku daray shicibiyo howl wanaagsan walaalayaalo anis weheshano walaalayaal aan kala taagno walaalayaal ra'iisul wasaaruhu wuxuu kaloo yiri naxariista madaxda ka muuqata waa biyaha dhuusamareeb ay cabeen hadday ka sii badsan lahaayeen waa ka sii naxariis badan lahaayeen war madaxweyne farmaajo wuxuu yiri aniga shaqadaydu waa inaan dastuurka ilaaliyo haddana inaan waaqic ahaado oo wixii jira la socdaa waa lagama maarmaan war madaxweyne farmaajo wuxuu kaloo yiri sharciga doorashooyinka anigoon rabin aan saxiixay waryaa ku gaaday masali garuunka duuban halka aale war leedin ma sheegi karay dhageysta madaxweyne farmaajo wuxuu yiri waxaan ka cararayay in la igu eedeeyay madaxweynuhu ma saxiixin sharciga doorashooyinka waxna ma qaban waadna ogtihiin siyaasiga wuxuu ku faano rabaa waxaan diidanaa in dawladayda la yiraahdo waxba ma qaban oo meeshii 2016 loogu tagay ayay joogtaa haddana talaan isku laabanaynaaho
wixii la isku raacayo ma diidani aryaadaha hore waxaa loo yidhi nin weyn iyo umuliso basay waxay og yihiin wax uma sheegaan madaxweyne farmaajo waxaa kale oo u mahad celiyey madaxweyne qoorqoor wuxuuna yidhi isagoo dhaqaale haysanayo wuxuu isu keenay dad aan is arki jirin oo isu ciil qabo waxaa kale oo uuna yidhi xukuumaddan waxaan faraya galmudug in si degdeg ah dhaqaale loogu taageero aryaadaha madaxweyne qoorqoor oo warramayna shirka wuxuu yidhi madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee naga ajiibay inaan gogoshaan u dhigno waa uga mahad celihaynaa shirkaanna shacabka soomaaliyeed iyo shacabka galmudug wixii ay ka filahayeen waa ka soo baxeen warnimiyow haddii dad odayaal ee gogollanfidii oo gargalaan madi gartiyoo ha gebagabaayaan horta faataada agriisadaayaan marka dambena lankii dadkanku wiima mayleeray hibilow niin do'ay gogolaas ay haka do'aayihe wartaasu waa iska caddaan dadna uma sinne maxaad naga wareerinaysaa warwar ma haysiin afhayeenka madaxweynaha cabdinuur oo shirkii dhuusamareeb khudbooyinka xiriirinay ayaa markii hore wuxuu ka tagay magacii ra'iisul wasaaraha markii dambena wuxuu yidhi waxaan ka raaligelinaa inaan ka tagay magaca ra'iisul wasaaraha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo abow ma qaladka qosol badan ku saxay tagtay war walla weynay waa iska dhowdhowladiine shirkii soomaaliya iyo somalilan ee jabuuti ka dhici jiray xaggeeba ku dambeeyey warqowdhinoo war iskama haysid shirkaas waxaa u dambaysay markaad taywaan kulunteen warnimiyow gowdhan marka horab istiraafraysahay haddii taywaan ixtiraaf ka heli ma in haysatan garaabado warnimada war ma haysaane waa tii roobab mahigaanay waddanka ka da'eenoo magaalada muqdisho gurya dumeen ha yeeshee tiyaatarkii godkii muusiga iyo masrixii xareed qarandumisaa afka iska marisoo dhex eegaagta qalabkii yiil meeshana in laga guray tegaysa aan heltaqada sheegaas dhibmale isilqaan wanga laka dhisay ogda isilqaan tuwalin bedele hooga wadaniyiinta sakeeladin hagaada dhuro leere aryaadaha haddaan ma waxay mare bugcaada dheer uma bisle alif baa uga soo bilow bugcada dheer uma bisle alif baa uga soo bilow miya oo tiyaatarka dhami ma one time usow ahay warnin shabaabaa hadda ka hor shabaabnimo lagu xukumo 5 sano soo dhammaystay ayaa 8 bilood oo bannaanka joogay 8 baabuur qaraxi ku xiray ardaydii macalliilka xasamiyo ahay yaa ma kabiirkii qaraxyadow ahay warwarkaa naga dhex gelinine kadibna waa la soo qabtay maxkamadaa la soo saara waana qirtay indha adka ma bacada ahaan maqli jira war bacdaba ka indha adag ina dhegayso xabsi daa'in oo madaxaha ku furto ah ayaa lagu xukumay yaahu kaasxaa adduunyada loogu dhibaa lama qaarajiyo warwar ma haysiin daadadkii fatahaddii ka dhacay afgooye shacabkii ay saameeyeen dawladdu waxay ugu deeqday $500,000 Maraykanka shacabkiina markay maqleenna shaki ay ka muujiyeen oo waxay dheen ama nagala xada ilaa awrka heeriya ku gubta geel wuxuu ugu sheekeeya waa yaqaani abdulow inga ku dheeloy galanti gaadgaad barato gumuddiya dhagaagay waa leereeyay warwarkaa naga dhex gelinine xildhibaan dalax oo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi xukuumaddu waxaan u baaqayaa in lacagtaasi dadka gacan ammaano loogu dhiibo si ay u gaarto shacabkii u baahnaa war shabaab waxaa la yidhi kanaaladii ku yili ow dheegle biyihii ay ku fureenoo meel cag la dhiga ma lahaa la yidhi algaroobka ku waraabiyo hayaana war abwaan maxaa cali kaari allah u naxariistay wuxuu yidhi haddii geel duqdiisii diddo orodka dayn weydo inuu aarankiisii durdurin oo ka sii darayo dabadeedna kala lumi barkina uu dib jiri doono aan dib dambe laysugu arkayn taa madayi weyd abwaan salaadna wali aray meeligeelka durdure erin shanshangaanka dhimade caashaqanii hayay dawadiisa yaa haya doorashada weeye war naga taga doorasho qof iyo cod waa laska dhaafay kal hadduu jacaylkeenu yahay runta la sheegaaye dadku waa inay dhegaystaan samaraadnaba booliyaasha